السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كيغا إن شاء الله تعالى وحان ربا مانتينا هالكان عن كغاهد لو قضب مهم أو كسابسن قضب بديني أول بقى محان كهايو عن كهد جري كسابسنا إن هو يدا أورشيفتا يفوشا إن شاء الله تعالى وحلقة يابا إن قضب كان أو أنفعه إن محان كهايو دمر بدن إن كواسو مركي كوبات دليان أما إن تلوينك عن بحين دونو ماركت أنفع دونان waxaa laga yaabaa inay in badan isweydiinayaan talow maxaan u baahanahay inaan sii qaato oo aan isbitaalka ku isticmaalo xilliga aan foolanayo maxaa yaa fici kara oo aan gurigeyga ka sii qaataa markii aan isbitaalka joogo ee aan ku jiro xilliga foosha waxaa laga yaabaa marar badan inay dhacdo inay gabdho badan hooyooyin badan ay sii qaataan alaab aysan u baahnayn inay hadhow isticmaalaan hadhowto culays ku tahay ay haddana la soo noqdaan waxaa dhici karta mararka qaarkood in alaab ay u baahnaayeen ay ilaawaan oo ay ka tagaan oo ay markay isbitaalka joogaan ay isdhahaan alaylahay kaa iyo kaabaa u baahnaa marka si aysan maaragtay sidaas u dhicin insha allahu tacaala waxaan rabaa inta ay fiirsanaysa dhali doonta ama horey ha usoo dhalaan ama hadda markii koowaad ha ahaadaan in ay ka faa'iideysan doonaan insha allahu tacaala horta maxaa la iiga baahan yahay goormaanse wax diyaarsadaa insha allahu tacaala waxaad wax diyaarsanaysaa mar allaaliya markaad u baahan tahay special waxaad diyaarsataa xilliyada ugu dambeeya maxaan ku dhahaa toddobaadyada ugu dambeeya waqtigii lagu qabtay lagu yiri waqtigaasaad ku beegan tahay ama waqtigaad adiguba tirsanayso aad is leedahay waan dhowahay waqtigaas waxaad soo qaadataa boorso markaas adiga kuu xiran oo meel kuu taalla oo hadhowta markii aad maaragtay isbitaalka aad aadayso aad dhigta qabsato aadan ka fikrinin alla maxaa u baahnaa alla maxaa stress aadan isku ridin boorsadaas dhigta unbaad sii qabsanaysaa meel bay kuu taallaa ayaama ka hor wiig ka hor ama 2 ama 3 wiig ka hor baad sii diyaarsatay boorsadaas marka maxaad ku ridaysaa boorso markaas adiga aad rabto ha kuu noqoto yacni alaabtaada kuu geli karo qasab ma aha inay si gooniya ay u ekaato saa adiga jeceshahay boorso meel ku taalo oo aad dhigta qabsato ha kuu ahaato maxaa u baahan tahay marka waxaa u baahan tahay oo walletkaaga aad ku sii qaadataa ID-gaaga oo mar walba aad maaragtay haysan jirtay oo aad isticmaashid maxaa yeelay isbitaalka waxa koobaad ee lagu weydiinayo waa ID-gaaga lagu weydiinayaa waxaad kaloo sii qaadanaysaa warqadaada joornaalkaaga uu ku qoran yahay maxaan ku dhahayo arrimahaaga caafimaadka maxaan ku dhahay ay kusoo siin doonto umulisada aad ka tirsan tahay xarunta caafimaadka hooyooyinka xarunta daryeelka caafimaadka hooyooyinka aad ka tirsan tahay ayaa maxaan ku dhahayo kusoo siinaysa waxaana ku yaallo oo muhiim ah dhiigaaga noociisa taasna waad sii qaadanaysaa ha kuugu jiro walletka intaad meesha joogto walaal waxaa lagaaga baahan yahay inaad sii qaadato kabo raaxo kuu ah oo markaad soconayso qolka dhexdiisa aad isticmaasho kabahaas ha noqdaan mid adiga raaxo kuu leh oo hadhowto aad maaragtay musqusha markaad gasho aad ku qubaysan kartid sida dacaskan oo kaleeto waad ku qubaysan kartaa mid markaas qubayska ama gooniha kuu ahaado ama isla qubayska qolka ku joog markaas sii diyaarso boorsada kusii rido waxaad walaal sii qaadatahay oo kaleeto maro raaxo leh oo maaragtay oo adiga maaragtay aad jeceshahay oo raaxo kuu leh oo markaas aad isbitaalka ku dhex isticmaali kartid hadda maradan oo kaleeto waa maro maxaa la yidhahdaa ii sheeg garan ah cunugaagana waad ka nuugsan kartaa oo maaragtay adna raaxay kuu tahay ama waxaad qaadanaysaa diricii caadiga ahaa maxaan ku dhahaa baatigeenii holofalofka ku ahaa balse ha noqoto maro aad cunugaaga ka nuujin kartid waxaa kaloo muhiima oo aad sii qaadanaysaa insha allahu tacaala mobilkaaga sii diyaarso iyo jaajarkiisa mobilka iyo jaajarkiisa waa inay diyaar kuu noqdaan waxaad kaloo sii diyaarsataa kaamarada diyaarso maxaa yeelay haddii aadan u baahnayn oo reero kaamara aadan ahayn uma baahnid laakiin haddaa cunugaaga kuu dhalanayo aad sawiranaysid iyo qoyskaaga kaamarada iyo maxaan ku dhaha jaajarkiisa meesha ha kuugu jiraan haddaad jeceshahay laptopkaaga sii qaado ama iPad oo hadhowta markaad rabto inaad meesha aad ku isticmaasho ayadana waad sii qaadan kartaa kana maxaa la dhahaa warqadda musqusha
ayadana badanaa dad baa ka cabaaday warqadaha musqusha ee isbitaalka oo dheheen waa dhib bay nagu tahay oo maaragtay raaxo ma leh qofkii rabo ha ku sii rito waa muhiim iyadana laakiin qasab ma aha inaad qaadato isbitaalada reer galbeedka way yaalaan saan jeclahay afrika ma aqaano laakiin haddaad afrika iyo soomaaliya iyo meelo badan aad joogtid oo markaas isbitaalka aan laga heli karin sii qaado boorsadaada kusii rido waxaa kaloo walaal muhiim ah geedkan faasaliinta afka la marsado boorsada kusii rido maxaa yeelay isbitaalka ma yaalo hadhowta markii ay gabadha ay foolanayso oo cunuga iska soo riixayso badanaa faruuryaha qalala faruuryaha markay qalalaan hadhowta wuu dildilaaci karaa markii afkii kala jiito dhac ayuu oranayaa markuu qalalan yahay marka waa inay sii qaadato si ay u marsato intay isbitaalka joogto kareen ay jirka marsato ayay sii qaadanaysaa oo markaas aan barafuun iyo caraf kaleeto aan lahayn oo maaragtay oo aan wax caraf ah lahayn maxaa yeelay cunugu markuu ku noogayo uma fiicna carafta tirada badan laakiin hooyadu kareemka jirkeeda ayay marsanaysaa waxaad kaloo sii qaadan kartaa haddaad rabto shaambo markaas ayadana aan caraf lahayn ama saabuun aan caraf lahayn oo aad ku qubaysatid ayadana walaal muhiim weeye wax aan yacni waxaad isticmaali doontid intaa cunuga haysatid oo cunayaysan caraf lahaanin tambooni gurigeeda ha kusoo diyaarsato ama ha sii qaadato haddaan laga helin isbitaalka haddii isbitaalka laga helana farmashiyaha ha kasoo gadato mid waxaa jira kuwa dheer oo waaweyn oo maaragtay qashinka kaa dhuuqaya gurigeeda ha ku diyaarsato waxaad kaloo walaal sii qaadataa insha allahu tacaala maxaa la yidhahdaayo daawada cadayga ama caday soomaali ayadana boorsada ha kuugu jiro mid ayada gooni ah oo aad usoo gadatay boorsada ha kuugu jiro haddii ay tabartaada ahayn ama aadan rabinna kaaga caadiga ah subaxa maalintaad bixi doonta ha ilaawin inta badan waa la ilaawaa laakiin haddaad kuwa cusub iska soo gadatana way kuugu jirayaan haddii aad xasuusatana kuwaaga caadiga ahaa baa isticmaalaysaa saa hore idinkugu soo sheegayba maro fiican oo nadiif ah oo markaas aad cunuga ku nuugsan kartid ama aad meesha kula joogi kartid hal baatiya ha kugu filan 10 maro ma kugu filna hal baatiya kugu filan halkaaga baatiga iska qaado haddaad duntidna meesha shaarara laga helaa isbitaaladan aan hadda anaga joogno shaararkaas isticmaali kartaa laakiin inta badan wuu gaaban yahay marka goorgaladaadii ama maradaadii baatiga ahaa sii samayso sii qaado badanaa waxaa sii samaysataa maryo aad cunugaaga ka nuujin kartid maro aad cunugaaga ka nuujin kartid ama maxaan ku dhahaa geedkan aan hadda idin tusaayayba gurigaaga ku joog oo maaragtay waad xiran kartaa hadba adiga saad rabto ayaad wax u samaysan kartaa cidna kuma dhahayso waxaan samee ama ha sameyn laakiin badanaa alaabta maryaha iyo waxyaabaha cooshka tirada badan uma baahnid waxaad isbitaalka joogtidba wax badan maaha arrinta ugu muhiimsan ee hooyada laga rabo waa geedkaas saa ujeediinba waa maxaa la dhahayo keeshali rajasiin ama rajabeeto hadba saa u taqaaniin waana mid khaas u ah naas nuujinta hooyada naaska nuujinaysa ayaa loogu talagalay haba yaraatee wax bir ah ma lahan oo maxaan ku dhahayo waxaad ka heli kartaa nadka ayagoo kala nooca ayagoo kala qaaqaab ah ayagoo kala maaragtay maxaa la dhahayo qiimo ah nadkaad ka heli kartaa badanaana waxaad diyaarsataa ayaamaha ugu dambeeya bilahaaga markaad dhammaysato diyaarso maxaa yeelay gabadha xaamilada ah miisaankeeda ayaa kordhaya naasaheeda ayaa caana kasoo buuxsamaya marnaba sayskeedii horeet waxaa laga yaabaa inaysan noqonin marka sidaa darteed sayska aad tahay markaad dhalaysid mid ah ama ka weyn soo gasho mid weyn soo qaado mararka qaarkood haddaad wax ciriiriya kugu noqdaan ee aad gashatid ciriiri wax ah waxaa dhici karto kanaaladii soo mareeyeen caanaha inay xiraan markay xiraanna ay halkaas adigii ay kugu bararaan naaskii kugu bararo oo caanihii kaa soo bixi waayo oo hadhowto aad qandho iyo feebar iyo wareer aad ka qaado marka mid u fiican oo aan bir lahayn oo aan haba yaraatay wax lahayn oona loogu talagalay naasnuujinta waa rajasiinka naasnuujinta taasoo gado hadda kan oo kaleeto wuxuu ku fiican yahay isagoo saa u xiran aad u jeediin halkaasaa laga furayaa halkaa markii laga furo daloolkaas ayay gabadha cunugeeda ka siisanaysaa caanaha hadhowta markay danaheedii dhammaysato naasnuujintii ay u dhammaato way xiraysaa labada dhinacba waa sidoo kale halkaas ayay ka siisanaysaa hadhowtana way xiraysaa waxaa markaas aad u baahan tahay oo kaleeto suufka hadhowta naaska hadda kan suufkii loogu talagalay ma ahan laakiin wuu u egyahay
ayagoo waaweyn ayaa jira ayagoo waaweyn farmashiyaad ka soo gadanaysaa waxaad dhex gelinaysaa naaska iyo marada laba dhexdeeda wuxuu kaa ilaalinayaa in dharku kaa wasaqoobaan oo kaa qooyaan oo caana kaa soo uraan halkaasaad gashanaysaa hadhowtana waad iska tuuraysaa ayagoo maryo ahaa jiro waxaad kaloo soo gadanaysaa geed kaloo waxaa jirto naaska lagu kululeeyo haddii qabow ay tahay winterka oo kaleeto naaska maaragtay waa lagu kululeeyaa suusan maaragtay uu kuu xanuunin okay intaas haddaan kaga baxo qodobadii ku saabsanaa hooyada waxay u baahan tahay insha allah waxaan rabaa inaan halkan kaga hadlo wixii uu cunugu u baahnaa cunug walaal wuxuu u baahan yahay maro culus oo adag maadaama cunuga calooshiisa caloosh muxuu kasoo baxay hooyo meel wuxuu kasoo baxay kulayl badan oo wuxuu kasoo baxay haba yaraatay aynaan qiyaasi karin wuxuu yimid dunni qabow badan oo uusan xamili karin sidaa darteed waa inaad usii qaadatid intuu isbitaalka joogo dhar waa yaalaan ama dharba looma baahno maryo badan oo lagu duuduubaa yaallo laakiin hooyada waa inay xabadka geliso oo ay xabadka ku kululeyso laakiin markaad gurigaaga usoo baxaysid iyo intuu gurigaaga joogo markaad gurigaaga yacni isbitaalka aad kasoo baxaysid maro culus badanaa waxaa usoo gadataa marada isku joogga ahee lugihii iyo ayaga dhanba iswataan waxaad usoo gadataa midab wiil iyo gabar haddii adi lagu yiraahday haddaa adiga diiday inaad ogaatid waxay yihiin ama aadan ogeynba aadan awoodinba inaad ogaatid waxaad usoo gadataa maro labada dhinacba ay qaadan karaan wiilashii gabdhahaba markaas ilmaha sayskiisa ah saysas waaweyn ha u keenin says markaas uu dhashay ku beegan oo ayada dhan iswato waxaa lagaaga baahan yahay koofiyad waa muhiim because meesha ugu qabowga badan oo cunuga qabowga ka dareemo waa madaxa koofiyad waxaad usoo gadataa gacmo waxaad usoo gadataa sokisyo usoo gado intaas markaad usoo gadatid mara culusna hadhowta aad usoo gelisid waxaad kaleeto oo intaad isbitaalka markaad kasoo baxdo aad soo isticmaashaa laba buste oo markaas adiga maxaan ku dhahayo iska dhexdhexaada oo maaragtay wiil iyo gabarba ay wada qaadan karaan usoo diyaarso kaas midna waad ku duuduubanaysaa cunugaaga midna korkaad ka huwinaysaa ama maxaa la yirahdaa haddaad ku dhex ridato bushjeerkaad huwinaysaa si iftiinkan tirada badan ee banaankan uu usoo baxay indhaha uga dhicin iftiinka badan ilmaha way dhibayaan in iftiinka badan maaragta aad uga ilaalisid ama bushjeerka ku dad ama asagiiba cunugiiba laba buste mid aad huwisay iyo mid uu isaga ku duuduubanba uga dhigo insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa teeda kaleeto dhaybar waxaad usoo iibsataa cunugaaga guriga intaadan maalmaha dhali doontid dhaybar usoo gado oo maaragta guriga dhigo sidaan kuu sheegayba cuntadaas diyaarso fridjka gashta si hadhowta ay adiga kuu sahlanaato mararka fooshaada ugu horeyso nabarada ugu horeyso ee gurigaaga aad hagaagsanayso cuntadaadan iska sii karso haddii aad u baahan tahay in cunugaagu maaragtay aad u iibiso ajirka la dhuuqo ama maaragtay naabkaba iskaga sii diyaarso mid ilmaha dhashay markaas ah haddii kaleetana naab umaba baahnid haddaad rabto weeye naasahagaaba naab u aho maaragtay uu ka heliyaa wax kasii fiicanba insha allahu tacala waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin haddii aad ka hesheen maxaan ku dhahayo hoos iigu soo qora haddii aad wax igu kordhinaysiin sidoo kaleeto insha allah waxaan rajeynayaa in dhammaantiin aad ka faa'iideysan doontaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu